habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Somali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah xisbiga talada Koonfur Afrika haya ANC ayaa u sheegay madaxweynahooda in uu baxo balse Jacob Zuma waxa uu leeyahay waxa la dhaqmay si aan xaq ahayn maxay kumanaan u yimaadaan bil kasta Serbia iyagoo u babac dhigaya qabowga Balkaniska waa halka ay ka soo galaan midowga Yurub meelaha aan internetka lahayn waxa ay beeralayda Kenya adeegsanayaan fariimo qoraal ah si ay u helaan halka beeraha isgeejin ayuu wali ku jira waxa uu hadal ka jeediyay telefishinka madaxweyne Jacob Zuma isagoo ku adkaystay in aanu mar dhow iscazili doonin waxa uu sheegay si aan xaq ahayn in loola dhaqmay waxa uuna ka digay in dhibaato ay dhici doonto oo ay saaxiibadii ka shalayn doonaan daqiiqadihii u dambeeyay ayaa xisbigiisa ANC ay ku dhawaaqeen in berri ay qaadi doonaan baarlamaanka codka kalsoonida kala noqoshada ah Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad ayaa ka waramaya madaxweyne Zuma waxa aad moodaa maalmihiisii inay tirsan yihiin xisbiga dalka ka taliya ANC ayaa waxa ay doonayaan in hogaamiyaha cusub ee xisbiga Cyril Ramaphosa loo dhaariyo madaxweynenimada labada maalmood ee nagu soo aadan madaxweyne Zuma waxa uu yiri isku dayga la doonaya in lagaga qaado xukunku inaanu xaq ahayn people are saying Zuma must go dadku waxay leeyihiin Zuma hana dhaafo dhibaatadu waxa weeye arrintan wax cusub ma ahan sanadka oo dhan ayaa la soo waday warkaasi iyagana ilaa hadda wax natiijo ah ma aanay bixin shabakadii lagu qabanayay ayaad moodaa inay ku soo dhowaanayso asxaabta madaxweynaha qoyska gubta ee lagu muransan yahay ayaa saaka ciidamada dembiyada waaweyn baadhe ee booliiska ee loo yaqaano Hawksku ay yimaadeen guriga ay ku jiraan oo ku yaala dhulka qaaliga ah ee duleedka Johannesburg reerka gubta waxaa lagu eedeynayaa inay ka faa'iideysteen saaxiibtinimada madaxweyne Jacob Zuma oo ay heleen awood fara badan oo dhinaca siyaasadda ah iyadana ay leeyihiin oo ganacsiga iyaga iyo madaxweyne Zuma way beeneeyeen eedeysiga warbaahinta deegaanka ayaa ku soo waramaya booliisku inay xidheen 3 qof oo uu ku jiro mid ka mid ah walaalaha gubta waxaana laga yaabaa in la qabto madaxweyne Zuma inanka uu dhalay Duduzain 24 sannadood markuu dhammaaday midabta koorkii Koonfur Afrika waxa aad moodaa inay marxalad adag marayso markan waa nabarro ay geysteen dadkii ka caawiyey dalka inay ka xoreeyaan caddaankii tirada yaraa ee xukunka haystay faahfaahin dheeraad ku saabsan xaaladda Koonfur Afrika iyo warbixino kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo mobilkaaga ka galaya boqolaal qof ayaa bil kasta gala Serbia kuwaasi oo rajaynaya inay u sii tallaabaan dalalka midowga Yurub qaar ka mid ah waxa ay iska dhiibaan xeryaha lagu qaabilo dadka magangeliya doonka ah laakiin kuwa badan waxa ay seexdaan meelo aan fiicnayn oo ku dhow xuduudda waxayna doonayaan inay galaan Croatia ayna ka baxsadaan in boolisku uu xiro sidoo kale waxa dhibaato ku ah cimilada xun ee xuduudda Serbia iyo Croatia Ahmed Xaaji Xasan ayaa faahfaahinaya waa meel bannaan waxaa ku nool qaxooti oo qaarkood ay la soo kulmeen dhibaato ilaa meeshii ay ka yimaadeen dad iskood isu abaabulay oo la baxay jiko aan magac lahayn ayaa siinaya adeegyo aasaasi ah qaxootigan ku nool Shiid halkan ayay muddo ku sugnaayeen waxaannu ka caawinay oo gacan ka siinaa in aysan xadka ka gudbin aysan halkan ku dhiman badankooda waxa ay ka yimaadeen Afghanistan iyo Pakistan waxayna rajaynayaan inay u sii gudbaan dhanka dalalka midowga Yurub raashinka waxa uu siinayaa awood ay si joogto ah isugu dayaan inay xuduudda ka gudbaan qaar ka mid ah raggan way dhaawacmeen sida la sheegay waxay alaaba isku dhacaan booliska xadka oo dadkan dib ugu soo celiya Serbia mar kasta way isku dayaan in ay xadka ka gudbaan marka la qabtana waxa lagu soo celiyaa Serbia nasiib darro mararka qaar waa la garaacaa marka dhaawacyo jirka ayaanu aragnaa meelo aan fiicnayn ayay seexanayeen xilligii qaboobaha oo dhan Serbia waxa ay hoy siisay oo keli ah kuwa isdiiwaangeliyey kuwa badan waxa ay sheegayaan inay ku qasban yihiin in fursadaha ay isku dayaan
sida ninkan oo aan doonayn in wejigiisa la arko. waxaan ku noolahay meel duura waxaan ahay ninkii duurka haddii aan gurigaygii ku noqdo noloshayda khatar gelaysa waan dhimanayaa marka waxaa lay qaatay inaan ku noolaado meel duura waxaan isku dayayaa inaan ka gudbo xadka balse kama daalayo iskudaygiisa wuxuuna aaminsan yahay in guusha ay timaaddo dhibaato badan kadib sida raggan in ay gaaraan midowda Yurub waa mid lagama maarmaan u ah. bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta. xeeladaha guud ee Israa'iil ayaa ka fiirsanaya in lagu eedeeyo musuqmaasuq ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. xalay ayay booliska Israa'iil sheegeen inay ku talinayaan in maxkamad loo soo taago eeda ah inuu laaluush bixiyay si warbaahinta war fiican uga sheegto caawiyeen maalqabeenno saaxiibo la ah markii uu ka helay hadiyado qaali ah. Netanyahu ayaa eedahaasi ka beeniyay TV Israa'iil leedahay. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson oo jooga Urdun ayaa la kulmay wakiilka ka socda kooxaha mucaaradka Suuriya. kulankiisa Naasir al-Xariiri ayaa ku soo aaday iyadoo Moscow iyo Washingtonba ay dafireen inay wax ka og yihiin lugta ay ku leeyihiin dagaalka Suuriya qandaraaslayaal Ruush ah. dhowr Ruush ah oo qayb ka ahaa ciidamada hubaysan ee Moscow ayaa lagu dilay toddobaadkii hore dagaal weyn oo ciidamada Mareykanka dhex maray. dhowr dal ayaa ballan qaaday balaayiin dollar oo lagu caawinayo dib u dhiska waddanka Ciraaq kadib markii laga adkaaday kooxda la baxday dowladda Islaamka. Kuwait oo martigelinaysa shirka deeq-bixiyaasha caalamiga ah ayaa ballan qaaday $2 bilyan oo deyn iyo maalgelin ah, halka Sacuudiga iyo Qatarna ay bixin doonaan $1 bilyan oo dollar. Turkiga ayaa sidoo kale ku yaboohay $5 bilyan oo dollar. ka qaybgalka Kuuriyada Waqooyi Olombikada qabobaha waxa uga baxday Kuuriyada Koonfureed in ka badan $2.5 milyan oo dollar. koox ka badan 400 oo taageerayaasha Kuuriyada Waqooyi ah ayaa ciyaaraha u yimid Pyongyang oo laga wada bixiyay lacagta. Kuuriyada Koonfureed ayaa ku marti qaaday waqooyiga in ay ku soo biirto ciyaaraha iyaga oo sheegay inay tahay fursad wada hadal iyo mid lagu dejinayo xiisadda. dad badan ayaa waxa ay u yaqaanaan fentanylka in ay tahay xanuun baabi'iye aad u xoog badan waxayna ka xoog badan tahay xanuun baabi'iyaha la yiraahdo morphine. dhaqaatiirta waxa ay wax yar ka mid ah u qoraan bukaanada kansarka qaba. BBC-da ayaa si qarsoodi ah u gashay Shiinaha si ay u daba gasho sida daroogadan Britain lagu keeno iyo sida ay u disho dadka isticmaala. Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka warramaya. waxay u eg tahay dagaal dhinaca kiimikada laakiin waa weerar booliisku ku qaadeen guriga koox daawada fentanyl ku iibisa internetka. Kyle Inos waxaa lagu xukumay 8 sano oo xariga daawooyin halis ah oo dad ay ku dhinteen kuwana ay wax ku noqdeen UK. la tacaalidda fentanyl waa arrin ku cusub booliiska hay'adaha gargaarka iyo shaybaarkan ay dawladdu aqoonsan tahay. maqaarka ayay geli kartaa marka ma doonayno wax halis ah. waxaa loo tababaray si wanaagsan sababtoo ah wax yar oo fentanyl ah ayaa qof dili karta. waa daawo awood badan oo raqiisa laakiin faa'iido badan laga sameeyo. laakiin xaggee ayay ka imanaysaa fentanyl? BBC-da ayaa qarsoodi u dabagashay kooxaha qaybiya ee Shiinaha. waa kulan u dhaxeeya nin madax ah iyo tarjubaankiisa. aanu ka hadalno ganacsiga haddaba 1 kilogaram oo fentanyl ah. Shiinuhu waxay mamnuuceen soo saarka nooc ka mida fentanyl laakiin shaybaaradu sharciga ma jabiyaan. waxay isbeddel yar ku sameeyaan maadada waana ay ku faraxsan yihiin in ay dibadda u diraan. taasi waa 12,600. daqiiqado gudahood heshiis ayaa nalala galay. BBC-du ma iibsan daroogo laakiin waxaa iska cad in fentanyl ay beec u tahay qof walba oo lacag haysta. tani way awood badan tahay. haa way xooggan tahay. aad ayay u xooggan tahay. haa way awood badan tahay. ma u diri kartaa Ingiriiska? haa. Shiinaha ilaa Britain kooxaha UK ee daroogada ka shaqeeya waxay helaan jumlo kadibna waxay si tafaariiqa ugu iibiyaan internetka. dhimashada dad badan oo Ingiriiska ayaa fentanyl soo gelisay diiradda hay'adaha dambiyada. waxay og yihiin inay salfatay nolosha kumanaan Maraykana waxaana ka go'an in ay joojiyaan. rajo yar ayay u tahay hooyadan oo ku weysay wiilkeeda oo 18 jir ahaa Robert. hadda Michelle waxay u ololaysaa sidii looga wacyigelin lahaa fentanyl sida ay u fududahay in loo helo
inay u fududdahay in qof uu ku dhinto. markana wararka ciyaaraha ugu waaweyn horyaalka Yurub kooxda City ayaa ku sii socota 8 u dambaysa kadib markii ay 4-0 kaga badisay Basel. Tottenham ayaa si la yaab leh uga soo laabatay 2 gool oo lagu yeeshay waxayna gurigeeda barbardhac kula gashay Juventus. caawana FC Porto waxa ay fooda daraysaa Liverpool. Real Madrid waxay martigelinaysaa PSG iyadoo doorka Zidane ee kooxda aad loola socdo. kooxda weyn ee Madridna waxay la liigaha 17 dhibcood ay ka hooseysaa midda ay loolamayaan ee Barcelona. haddii PSG reebtana Zidane ma hayso fursad uu xilli ciyaareed dambe kula joogo kooxda. dhanka kale 4 maalmood oo dabaylo halis ah ayaa saameeyay tartanka Olombikada qaboobaha. 2 munaasabadood oo abaalmarin ah ayaa dib loo dhigay daawashadooda waxaa la sheegayaa in aysan banaanka u soo bixin. 2 tartan oo dumarka ah barafka ku cayaarana waxaa sidoo kale dib loo dhigay halka dadka ku taraaraxa barafkana ay sheegayaan in aragtida ay aad u liidato iyadoo ciyaarta kama dambaysa ahna ay ku soo aaday xilli uu baraf aad ada'ayo. malaayiin beeraley ah oo ku nool meelaha fog qaybo ka tirsan Afrika ma haystaan internet. mararka qaarna waxa ay dareemaan go'doon. farsamada loo yaqaano WeFarm ayaa siisay hab bilaash ah oo ay isku dhaafsadaan fikradaha waxayna beeraleyda kale ee adduunka ku weydiisan karaan warbixino iyagoo u diraya fariimo. Caaisha Afrax ayaana ka waramaysa. Patrick Kafore waa beeraley ku dhaqan gobolada dhexe ee Kenya. waxa uuna nolol maalmeedkiisa ku maamulaa khudaaraha uu beero. Patrick ayaa lagu tiriyaa beeraleyda ugu khudaarta wanaagsan gobolka uu ka soo jeedo kadib markii uu bilaabay isticmaalka adeegan loo yaqaano WeFarm ee laga helo telefoonka gacanta. isticmaalka adeegan ayaa kubciyay dhaqaale beeraley badan. adeega WeFarm ka hor anigu waxaan khudaarta u beeri jiray naftayda balse markii aan bartay adeega ayaan ogaaday sida adeega uu iga caawin karo in wax soo saarka beertayda ay kobacdo. Patrick iyo beeraley kale oo ay tiradoodu ay gaarayso 1 milyan barkiis oo ku kala nool dunida geesaheeda ayaa iskula xiriiraya adeegyadan iyadoo ay adeegyadu ay u fududeynayaan isla wadaaga xogta saamiyada iyo dalagga ay soo saareen iyagoo aan u baahnayn aaladda internetka ah. iyadoo ay dad gaaraya milyan kale barkiis ay ku xiran yihiin adeega waxaa jiro beeraley qaar oo tallaabo dheeri ah sii qaada iyagoo qabanaya kulamo ay ku barayaan beeraleyda kale faa'iidooyinka ay leedahay isticmaalka adeegan. waxaa la tusinayaa sidii ay isugu diiwaangelin lahaayeen adeega isla markiibana waxa ay bilaabi karaan weydiimahooda. Rose Wenge ayaa hadda ka heshay jawaab su'aal ay u dirtay beeraley kale. waxaan weydiiyey sida aan u dhaqaaleyn lahaa sacaan anigu leeyahay oo dhali doonto 2 bilood kadib. wixii aan ku nafaqayn lahaa si ay caano badan u lahaato oo aysan dabardaro meel ugu dhicin markii ay dhasho kadib. jawaabo badan ayaan helay. inkastoo ay Rose su'aashii ay ku weydiisay luqadda Swahiliga, beeraleyda ku wada xiran adeegan ayaa awood u lahaa inay su'aasheeda arkaan una soo diraan jawaab ku habboon. marka la fiiriyo adeegan sidiisaba waa farsamo casri ah oo u oggolaanaysa in su'aasha ay u dhigi karto luqadda iyo habka uu u fahmi karo qof beeraley ah oo reer Uganda ah. sidoo kalena jawaabta uu u dhigi karo hab qofkii uu weydiinta soo diray uu u fahmi karo. hase ahaatee adeegan la soo saaray 2015 ayaan ka marnayn caqabado maadaama dadka isticmaalaya ee ku sugan dalka Kenya ay da'doodu ay ka weyn tahay 50 sano ayaa aynan u fududeen isticmaalka taleefanada si ay uga helaan xogta ay u baahan yihiin. balse ugu yaraan Fatima Sinki ayaa ku baranaysa rugtan sidii ay u isticmaali lahayd adeega. qaybo ka mid ah Aasiya waxaa loo diyaar garoobayaa soo dhaweynta sanadka cusub ee Shiinaha. magaalada Guangzhou ee koonfurta Shiinaha ayaa nolol iftiin kala duwan soo bandhigtay in ka badan 700 oo nalna waxaa laga shiday dhismo bartamaha magaalada ku yaal. sanadkan oo si rasmi ah u bilaabanaya 16 February waxaa loogu magac daray sanadka eyga. warkan iyo kuwii ugu dambeeyay waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan boggeena bbcsomali.com. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caawa. waadna ku mahadsantihiin daawashadiinna. inta aan kulmi doonno habeen dambe waxaan idinkaga tegaynaa dhammaanteenba waad ku mahadsantihiin daawashadiinna. nabadgelyo.